sanadkii dhammaaday ee 2024 waxaa lagu xasuusan doonaa labadan sawir. Sawirka koowaad waa ciidankii qaranka oo xadka ka tallaabaya, gacmaha kor u taagaya, markii ugu horreysay taariikhdana magangelyo weydiisanaya dal shisheeye. In Kenya ay si bahdilaada hubka dhigis ugu samaysay geesiyaasha qaranka maahan eed ay wiilasheenu leeyihiin ee waa ceeb qaran oo ku timid siyaasad xumid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ku suntan dayacaadda dhalinyarada naftooda u hubaysay difaaca waddanka. Sawirka labaad waa gabar yar oo iskuuley ah kuna dul oynaysa burburka dhismaha gurigii ay subaxii hore ka kala haday. Gabadhan weligeed ma helin adeeg dawladeed sida waxbarasho, caafimaad iyo koronto, amni iyo wax kasta oo ay dawladdeeda xaq ugu lahayd. Waxay la oynaysaa ma ahan adeegyadaasi aysan helin ee waa in madaxweynihii waddanka uu cagaf dul mariyey jingadii ay saaka ka jirmaaday. waa in aysan meelna ku ogeyn hoy ay habeenkaasi u hoyato iyo in ku takrifal awood dawladeed loo adeegsaday. ilmahayga familiga reer xasan sheekh in badan oo kamid ah waa weynaadeen waxbarasho jaamacad ay ka baxeen. cabsida ugu weyn ee maanta Muqdisho ka jirta ma ahan weerar argagixiso iyo alweera iyo tuug jidka taagan ee waa cagaf amar madaxweyne ku socota oo carruurta iyo haweenka guryaha ku dumisa xilliga hurdada ay ku jiraan. madaxweyne xasan sheekh haddaan naga celi wayso dadkan halaha ku rido mid jaban iyo mid jiisahayn ku ognahay. madaxda qaranka waxaan ka codsanaa kor iyo hoos ha isu fiiriyaan. madaxweyne waxaa tahay 70 jir, da' kuma dhimana, 2 mar ayaad xilka dalka ugu sarreeya qabatay, waad ka warqabtaa nolosha dalka jirta. fadlan ka daa boobka danyarta duruufaysan, dayacaadda iyo dandaradana ka joojiyey ciidanka qaranka.